Soomaaliday wax laydin carbinayaa laydin caawinayaa cilmi inaydin barataan oydaan noqon xawaaliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. kusoo dhawaada mar kale iyo barbaarsama channel oo had iyo jeer aan idinka soo baahiyo barnaamijyada ku saabsan barbaarinta iyo tarbiyadda wanaagsan ee caruurta. haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad uga mid noqoto waalidiinta iyo asxaabta kale ee nagu xidhan. haddii aad hore noola joogtayna gambaleelka furo si aad uga warhayso hadba barnaamijyada cusub iyo wixii kusoo kordhaa barbaarsama channel. mahadsanidin. mawduuceennan iyo markan waxa uu ku saabsanaan doonaa barnaamij socday oo aan bilo ka hor soo geliyey 2 qaybood oo ka mid ah, taasoo ku saabsan isbeddelka caruurta iyo koritaankooda, sida lagu garto inuu ilmahaagu si caafimaad qabta koritaankiisu u socdo iyo in kale. fideoyadeenna hoose haddii aad eegtaan waxa aan soo geliyey qaybta koowaad oo ilmaha sanad marka uu dhashay ilaa sanad ah iyo ilmaha 2 jirka ah. markan iyo haatan waxaynu eegaynaa ilmaha 3 jirka ah iyo waxyaabaha lagu garan karo in uu koritaankiisii si habsami ah u socdo. barnaamijkan insha allah waxa uu noqon doonaa mid taxane ah oo had iyo jeer aan soo geliyo isbeddelka sanad walba ilmaha waxaa looga baahan yahay ama lagu garan karo inuu koritaankiisi sidii loo baahnaa ee saxda ahayd u socdo iyo in kale. dhanka kalena barnaamijyadeena kale waa aynu wadan doonaa insha allah, inaga oo dhinacyo badan oo kala duwan ka eegi doona koritaanka ilmaha. dhinacyadaasi aynu ka eegi doono waxaa ka mid ah hadalka, maqalka, dhinaca maskaxda, dhaqaaqa iyo ciyaarta iyo qaar kaloo la mid ah. haddii aynu ugu horreynba soo qaadanno dhinaca hadalka, ayaa waxa ay culimada caafimaadka ama caruurta ku takhasusay sheegayaan in uu ilmuhu marka uu jiro 3 jir loo baahan yahay in uu garto ugu badnaan 1000 kelmadood. waa ay ka yaraan kartaa, balse inta qiyaas ahaan ugu badan ee la sheegay ayaa noqonaysa 1000. markaas waxaa loo baahan yahay kelmadaha uu garanayo in uu 2 kelmadood, 3 kelmadood iyo jumlad isku xidhi karo. khasab ma aha in haddii tusaale ahaan uu su'aal ku weydiinayo uu sida saxda ah senteniska ugu horeeya ee calaamatu su'aalka ah hormariyo, balse sida ugu doonaba ha kuu weydiiye waa in ay kelmaddaasi ama senteniskaasi weedhaasi ka koobnaato ilaa 3 kelmadood. sida ma ii iman kartaa oo kale. haddii uu rabo inuu yidhaahdo, waa in ma'du hadday doonto ay dhexda ku jirtaa, balse waa inuu odhan karaa uun. marka la eego waxyaabaha kale ee laga rabo hadal ahaan inuu ilmahaasi garan karo, waxaa ka mid ah inuu kala saari karo hadallada ay ka mid yihiin aniga, adiga, waxaygii, waxaagii iyo kuwa la midka ah, sida halkee ama meesha, qofkee iyo waxee inuu kala garan karo, isla markaana uu ku dhawaaqi karo. tusaale ahaan, haddii aad wax u dirto oo markaasi aad u tilmaanto kuna tidhaahdo ii soo qaad alaabta miiska hoostiisa taalla, waa inuu fahankiisa luuqad ahaaneed aanu miiska dushiisa ka daydayin, balse uu fahmo uu garto miiska hoostiisu halka ay tahay. ilmahaasi waa in uu dareenkiisa ama dareenka hadal ku soo bandhigi karo ama uu ku qeexi karo, sida inuu gaajoonayo, daalan yahay,
iyo waxyaabaha la mida. dhib ma laha haddii ay kelmadaha qaar si khalada uga soo baxayaan ama aanu karahayn. inta laysku raacsan yahay xarfaha ay ka mid yihiin xarafka g, k, r, s, sh iyo wixii la mid ah, waxaa la ogyahay inay carruurta inta badan ku adkaan karaan ama ay si khalada ugu dhawaaqaan. haddii uu kelmadahaasi si carab la'aana ugu dhawaaqaya ama aanu ku dhawaaqi karin xarfahaasi baan ka wadaaye, wax dhibaato ah ma laha. balse waxaa muhiim ah inuu ilmahaasi isku dayayo inuu wax sharaxo ama uu isku toosiyo hadal 3 weedhood ugu yaraan ka kooban. haddii aynu u nimaadno dhankan iyo maqalka, waxaa loo baahan yahay inuu ilmahaasi dareemayo dhawaaqa agtiisa ka socda ama hadalka agtiisa ka socda. waxa kale oo la rabaa inuu ilmahaasi ka falceliyo hadalka xashaashaqa loo yaqaano ee aayar loo hadlo. waxa kale oo muhiim ah inuu kala yaqaano maqalka noocyadiisa kala duwan ama dhawaqa kala duwan ee sanqadhaha. tusaale ahaan, marka aynu saa sheegayno waxa aan ka wadaa inuu fahmi karo haddii quraarad jabtay ama uu caag dhulka ku dhacay oo kale. markan iyo haatan haddii aynu u nimaadno dhinaca maskaxda iyo garaadka ama garashada ilmaha, waxaa loo baahan yahay inuu ilmahaasi waxyaabaha ku cusub uu garan karo ama aad u eego. tusaale ahaan, waxyaabaha haddii aad soo gashaan meel cusub ama guri idinku cusub, alaabta taallo oo kale, ama xafiis timaadaan, alaabaha yaalla miiska dushiisa, inuu taabto uu eego waa wax normal ah, laguna garan karo inuu ilmahaasi koritaankiisii maskaxeed si sax ah u shaqaynayo ama u socdo. waxaa kaloo ka mid ah inuu garto waxyaabaha ama xaaladda ku cusub isagoo leh meeshan hore umaan arag ama waxaas hore umaan samaynin. dhanka kale waa inuu kala garto waqtiga, sida xilligu inuu subax yahay, habeen yahay. waa inuu qeexi karo faraqa u dhaxeeya shalay iyo maanta. markan haddii aynu u nimaadno dhanka dhaqdhaqaaqa iyo in ilmahaasi murqihiisu ay si fiican u korayaan ama uu dhaqaaqiisa iyo ciyaartiisu halkii loogu talagalay 3 sano ay marayso, ilmahaasi waa in aanu ka baqanin meelaha qaar koritaankooda, sida waxyaabaha af jarmalka loo yaqaano ruj ama af soomaaliga ay dadka Soomaalidu yidhaahdaan siisiibato oo kale. waxaan rajaynayaa haddii ay jirto kelmaddaasi Soomaali kale oo loo yaqaano in aad commentka iigu soo qori doontaan. waxyaabahaasi in aanu ka baqin oo intuu fuulo uu iska soo siibadsiin karo oo kale. waxaa kale oo la rabaa ilmahaasi in si geesinimo ku jirto uu u tijaabiyo waxyaabaha la kaxaysto ee carruurtu ku ciyaaraan, sida baaskiilka loogu talagalay 3 jirka iyo bahasha yaree lugta lagu riixo iyo kolba wixii uu markaa haysto ama arko. ilmahaasi dhinaca dhaqaaqa waxaa kale oo laga rabaa in uu sameeyo ama si bilaa cabsi ah u kori karo kaabadaha, ugana soo daadegi karo isagoo oo keligii ah. ugu dambayn waxa aynu u imanaynaa waxa lagu garto in ilmahaasi koritaankiisii dhinaca dareenka iyo isdhexgalka bulshadu uu si habsami ah ama sax ah u socdo. waxaa ka mid ah isdhexgalka bulshada inuu ilmahaasi caawin karo ilmo kale oo wax ku dhaceen
ama uga baahdaa caawimo amaba dadka waaweyn ha noqoto inuu haddii uu qof ula yimaado inuu la ciyaaro ka oggolaado islamarkaana la ciyaaro oo kale. haddii uu ilmahaasi diido inuu ilmaha kale la ciyaaro kama dhigna in aanu koritaankiisi si caafimaad qabta iyo habsami ah u soconin, balse waxaa laga wadaa sida ay u badan tahay. waxa kale oo la arkaa ilmahaasi inuu dareenkiisa sheegi karo islamarkaana u dulqaadan karo haddii ay dhibaato kala soo kulanto dhinaca bulshada oo kale. intaasi waxaynu kusoo gabagabeyneynaa mawduuceennan oo noqon doona mid taxano ah, kuna soo qaadan doono sanad walba carruurtu inta ay jiraan iyo isbeddelkooda lagu garan karo inuu si caafimaad qabta ama habsamidii loogu talagalay u soconayo koritaankoodu, innaga oo ka eegi doonaa sanad walba dhinacyadan hadda aynu soo qaadanay oo kale. dhanka kale waxaa inoo hareer socon doonaa barnaamijyadeena kale ee hadba aanu u aragno in aad baahi u qabtaan ama idinla wadaagno, amaba ha noqdaan qaar aad idinku su'aal ahaan nagu soo weydiisaan islamarkaana aan halkan kasoo samayn karo barnaamij ama mawduuc si aad u fahantaan. haddii aad ka heshay like saar, siina sheergare si uu u gaadho waalidiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.